guud ahaanba shacabka deegaanka Goljanno ee gobolka Sool ayaa si weyn u muujiyay taageerada ballaaran ee u hayaan xisbiga isbedel doonka ee wadani kadib markii ay salugeen siyaasadda xisbiga talada dalka ee kulmiye waxaana deegaanka Goljanno isugu soo baxay cuqaal waxgarad dhalinyaro haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo ruuxaya calanka astaanta oo xisbiga mucaaradka wadani iyo boodhar ay ku xardhanaayeen sawirada murashaxa jagada madaxweynaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo sidoo kale xogayaha maaliyadda xisbigaasi Cabdirasaaq Khaliif Axmed iyagoona socod luga ku soo maray wadooyinka halbowlaha waa deegaankaasi intaasi kadib taageerayaasha isugu jira odayaal cuqaal ganacsato haween iyo dhalinyaro ayaa goob fagaaraha kula hadlay saxaafadda waxaana hadaladoodii kamid ahaa sida tan maanta waxaanu joognaa tuuladii Goljanno annagoo ah bahaweynta Yaxya Cabdalle waxaanu u sheegaynaa saxaafadda iyo Soomaalilandba inaanu ku soo biirnay xisbiga isbedelka cusub ee wadani waxaanu u sheegnaa mar haddii Yaxya noqday Soomaaliland oo wadani ku diray wadanina uu soo baxayaa meesha aan joogno waa cuqaaladii Yaxye way ka hadlayaan way soo dhaweynayaan si weyn bayna u hadlayaan Soomaaliland inaanu nahay haddaanu nahay beesha Yaxye inaanu nahay meesha wadani inaanu soo dhaweyno qalbi furan gacmo furan ku soo dhawaada dhamaantayo inaanu nabad iyo ahmiyad iyo qalbi furan iyo taageeraba inaanu ku soo dhaweynayno dhamaantayo maanta waxaanu xafiiskan u furay xisbiga wadani waxaanu ku muujinaynaa shucuurtayada iyo muruqayaga iyo maalkayagaba inaanu wadani nahay haddaanu beesha Yaxye nahay wadani baanu qaadanay Soomaaliland qaadan بسم الله الرحمن الرحيم أنا ومقعي مقع بيشة Yaxye ku hadlaya oo Goljanno jooga afhayeenka caaqilka guudna aan ahay waxaanu qaadanay oo aanu ku mideysanahay taageerana siinayna xisbiga wadani ee madaxda ka yahay Cabdilaahi Ciro madaxweynaha Cabdirasaaq Khaliif Axmed Dawdar baanu taageero wahaynaa buuxda annagu cidna ku gafimayno waxaanu ka hadlayno berigay soo baxan baanu kala hadlaynaa maanta se taageeraan u haynaa haddaanu nahay beesha Yaxye codkayagana waa siiliyooba waa la garab taaganaa wadaga Ciro madaxweynaha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحنا سو دوينا حسبك ودني وحنا ku soo dhaweynaa gacmo furan insha Allah waxaanu jecelahay inaan codkayaga siino wadani hadlaan nahay beesha Yaxye waa kuwa kaalarkii aanu qaadanay ka qaadanay waxaanu siin doonaa xisbiga wadani waanu siin doonaa assalaamu calaykum waxa weeye xisbiga waynu taageersanahay hayli hoob waanu muujinaynaa xisbiga kulmiye talada hayo hadda uu ku guul daraystay inuu noo dhiso saldhig bilays inuu noo dhiso meel caafimaad inuu noo dhiso meel riig biyo nooga soo saaro uu ku guul daraystay wadani baa intaba qabanaya insha Allah guusha iyo garabkana waxay la taaganahay wadani aniga ku hadlaya afka beesha Yaxye gaar ahaan dhalinyarada Yaxye Cabdalle waxaan ogeysiinaynaa ummadda Soomaaliland inaan anagu nahay xisbiga wadani aan waxa lagu xiyaan cod hayno aan ugu shoona meel kasta aan joogno aan magaalooyinka deganahay haday tahay tan gaarka noo ah iyo haday tahay magaalooyinka la degaba ama dadka la degnaba inaanu hadaan nahay beesha aan ugu hiilin doono codkayaga xisbiga wadani waxaanu nahay beesha Yaxye ee taala Goljanno marka waxa weeye waxa noo yimi xisbiga wadani waanu soo dhaweeynaa waanu taageersanahay niyadaanu ka taageersanahay maskaxdaanu ka taageersanahay qalbigaanu ka taageersanahay hanaato Cabdalle oo aan ka tirsanahay ururka hooyooyinka Yaxye Cabdalle waxaan soo dhaweynaynaa xisbiga wadani oo aanu heliyo hooba ag taaganahay sidaas aanu ku soo dhaweynaynaa Goljanno anoo ah kaftanka isboortiga degmada Goljanno xisbiga wadanina aad u soo dhaweynaynaa mawduuca ayaga aan isku raacsanahay ahna inaanu soo dhaweyno xisbiga wadani haddaanu nahay dhalinyarada degmada Goljanno dhammaan halka waxa isku soo baxay shacabweynaha degmada Goljanno beesha asaga degan oo dhawaay beesha Yaxye Cabdalle dhammaan iliyo waxa la gartaan xisbiga wadani oo markii saddexaad ay ku soo dhaweeyaan inta kaambeel ku socday doorashada socotay waxa ballanka dadka reer Goljanno inay xisbiga garab taagnaadaan isku soo wada duubo isbuucyadii ugu dambeeyay ayaa dhammaan deegaanada uu ka kooban yahay gobolka Sool waxa si weyn u ruxayay taageerayaal tiro badan kuwaas oo si weyn ugu hanweyn isbedelka ay in badan ku haminayeen inuu la yimaado xisbiga mucaaradka ee wadani
isla markaasna ay codkooda ku soo saaraan maalinta loo dareero doorashada jagada madaxweynaha ee Somaliland. Samiir Saciid Bile, Bulsha TV, Laascaanood.